السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة كسر دو ساتو أكاديمي مجاعي وعبد العزيز على النور فضل هذا channel كل سبتها سبسكرايب ده هدي آخرين ولا جوكتين فيديو قام لايك صار أصحاب تقدر أوصي شير قلي سيوقف فايدة أنت هتكفايدة إن لك عشان كان ما أنت وحكوا سابسين هاي the source free RL circuit وراي وحنا قصوا هذا الناي the source free RC circuit oo circuit ka koobnay capacitor iyo resistor ayaan kasoo hadalnay maantana waxaan ka hadlaynaa haddii ilaahay yidhaahdo circuit ka kooban resistor iyo inductor circuitka aan ka hadlayno sidaan ayuu u yaalaa wuxuu ka kooban yahay inductor oo halkaan ah iyo resistor oo halkaan ah inductorka waxaan usoo qaadanay L resistorkana waxaan usoo qaadanay R ujeedka iyo hadafka aan ka leenahay circuitkan wuxuu noqonayaa waxaan soo sheegnay hore usoo sheegnay casharadii markaan ka hadlaynay inductors markaan ka hadlaynay in inductorku uu kaydiyo current uu kaydiyo currentigas uu kaydiyo marka waxaan usoo qaadanaynaa in inductorkanu uu hadda ku kaydsan yahay current maadaama uu source kale lahayn oo asaga uu source u yahay sidaa darteed currentiga uu bixinayo ama uu u gudbinayo resistorka uu gudbinayo iyo waqtiga uu ku gudbinayo ayaan baaraynaa ama aan analysis ku sameynaynaa waxaan ognahay resistorka aan hore usoo sheegnay in resistorku uusan markii timeka uu zero yahay uusan isbedelin macnaha resistor currentiga inuusan isbedelin markii uu timeku yahay zero sidaa darteed waxaan dhahnay markii timeka uu zero yahay currentigu wuxuu lamid noqonayaa I zero ayuu lamid noqonayaa equation 1 ayaan u bixina sidoo kale energyga maraya macnaha energyga ku kaydsan markaas inductor ku kaydsan sidoo kale wuxuu lamid noqonayaa W0 oo ah current square garaysan oo lagu dhiftay inductance oo lagu dhiftay half waa markii xaaladdu ay tahay xaalad zero ah ama macnaha uusan weli bilaaban intaas ay noqonaysaa halkaa markaan marayno waxaan ognahay shay walba inuu leeyahay voltage oo leeyahay inuu leeyahay current sidaa darteed voltageka maraya voltageka uu kaydinayo voltageka sourciga inductorka ah waxaan u qaadanaynaa VL ayaan u qaadanaynaa sidoo kale voltageka resistorka waxaan u qaadanaynaa VR ayaan u qaadanaynaa intaas markaan kala qaadano oo labadoos aan kala qaadano waxaan ku apply garaynaynaa halkan loop ayaan ku apply garaynaynaa ama Kirchhoff's voltage law Kirchhoff's voltage law ayaan ku apply garaynaynaa oo hal loop ayaan ka dhigaynaa loopkaas sharcigiisu wuxuu ahay Kirchhoff's voltage law marka laga hadlayay isku geynta voltageyada loopka waxay la mid yihiin zero sidaa darteed waxaan dhahaynaa intaan taas u gudbin waa inaan ognahay ama aan inaan xasuusiyo qaacidadii lagu heli jiray voltageka maraya inductor waxaa lagu helaa inductancega oo lagu dhiftay change of current oo loo qeybshay change of time sidoo kale voltageka maraya resistorka waxaa lagu helaa Ohm's law oo ah R oo lagu dhiftay I ama resistance oo lagu dhiftay current ayaa lagu helaa hadda ayaan waxaan tegaynaa qaybta aan ka hadlayay oo ahayd loopkii ama Kirchhoff's voltage law waxaan dhahnay labadooda la isku daro waxay la mid tahay zero sidaa darteed qaacidooyinka hadda aan soo saarnay mid walba qaacidaan soo saarnay oo ah tan waxaan soo saarnay VL intaan inay la mid tahay VR inay intaan la mid tahay sidaa darteed booskan VL waxaan ku bedelinaynaa qaacida hadda aan soo saarnay sidoo kale voltage booskan VR waxaan ku bedelinaynaa qaacida hadda aan soo saarnay sida markaas waxay noqonaysaa intaanay noqonaysaa labadooda qaacidadan tan iyo tan waa isku mid booskii aan ku kala bedelna bis booskii ayaan ku kala bedelnay booskii ayaan ku kala bedelanay tan iyo tan aan ku kala bedelnay sax halkaa markaan marayno qaacidadan kasii shaqaynaynaa qaacidadan L ayaan dhinac walba u qaybinaynaa L markaan u qaybino dhinac walba intaan ayaa noo soo baxday sideeda inta kale usoo qaato waxaan ka bedela ma lahan halkaa markaan marayno waan arrange garaynaynaa macnaha currentigan halkaan ayaan keenaynaa time changegana waxaan keenaynaa halkaan ayaan keenaynaa sidaanaan ka dhigaynaa saanaa ula jeedaa currentiga halkaan aan keenay tanna waan wareejinay minus ay qaadatay halkaan aan keenay equation 2 aan u bixinay marka equation 2 ayaan waxaan ku sameynaynaa integrating terms macnaha integration ayaan waxaan ku sameynaynaa labadan term oo kala ah qaybtan iyo qaybtan ayaan integration kula sameynaynaa
waxaa nooga soo baxaysa integrationka gelinayna horta marka hore integrationka markaan gelino waxaan ognahay haddaan ina xasuusiyo xisaabaadkii caadiga ee calculaska ahayd integration oo intaa tusaaloo kale ah t halkaana 0 haddii 1/x dx aa laga dhigaya sax waxaa kasoo bixi jirtay log x ayaa kasoo bixi jirtay log x ayaa kasoo bixi jirtay marka waxaan sameynaynaa log x-kan sidii oo kale hadda meesha maxay lamid tahay 1/i ay lamid tahay 1/i qaybtan kalena sideeda r waa constanty lna waa constanty tanna waxaa kasoo baxaysa t bisa kasoo baxaysa sax halkaas ayaan kasii wadaynaa waatan qaybtan loggii waay loggii anu maxalka waxaa u qaatay natural logarithm ayna sidan usoo qaatay calaamadana geesahan ka saaraya waa tii integrationka oo time constanty ama time dependent ahayd equal ayaan dhahayaa qaybta kalena saasaa kasoo baxday labada geesaan ka gelinaya waa ila fahamtay intaas halkaa markaa marayo tanaan ku bedeshay it aan meel walba ku bedeshay it haddaan inta ku bedesho halkaana marna zero aan ku bedelinaya marna it aan ku bedelinaya kadib zero markaan ku bedesho intaana kasoo baxaysa it markaan ku bedesho intaana kasoo baxaysa qaybtan kalena sidoo kale waxaan ku bedelinaya marna t aan ku bedelinaya marna zero aan ku bedelinaya zero markaan ku bedesho waxaa kasoo baxaysa zero markaa t ku bedeshana td aa kasoo baxaysa oo hadda markii t haddii lagu bedesho t leewa halkaa markaa marayo waxaan ognahay sidoo kale in log tusaaloo kale log 2 oo laga jaray macnaha log 2a dheh log 2a oo laga jaray log 2b waxay la mid tahay macnaha markii oo logarithm ka shaqey jirnay log 2 logta hal xabaa laga soo qaatay haddii isku base yihiin log 2 hal xabaa laga soo qaatay a oo loo qeybshay b haddii ay inta balas tahay waxaa la dhahaa waa haddii inta ay balas tahay waa la isku dhiftaa a oo lagu dhiftay b aa la dhahaa intaana marka waxaa waaye logarithm qaabka looga shaqey jiray halkaa marka mara maxaan sameynaya marka waa minus waxaan sameynayaa labadan hal xabaan kasoo qaadanayaa kadib tanna waxaan ka dhigayaa tan iyo tanna waa isu qaybinayaa oo tasaasaan sameeyey tanna sidaan usoo celinayaa sidaan kasoo tegayaa bis intaanan qaybs kale u gudbin sidaan kasoo tegay halkan marka waxaan sameynayaa waxaan qaadanayaa power of e macnaha power of e haddaan qaato horta tan intana power of e qaadan inta tanaan ku dhifanaya qaybtan halkanaan ku dhifanayaa kadib meel walba waxaan ka qaadan inta e aan qaadanayaa intana e aan qaadanayaa edan way kansalmaysaa waxay noqonaysaa intaan bisa kusoo haraysa it waxay lamid noqonaysaa waa kana take the power of e wiigad waxaan helaynaa it waxay la mid tahaan dhahnay tan halkan aan kusoo dhifanay e aan qaadanay intaana power ayaan uga dhigaynaa minus tr intaan equation 3 ayaan u bixinay taas equation 3 ayaan u bixinay macnaha halkan marka waxaan ka haysanaa proof qaybtan waxay noo sheegaysaa in currentiga time macnaha currentiga uu soo saarayo inductorkii circuitkii inductorka tusaale circuitkii kan ahay oo saansa dhahay circuitkan inductorkan wuxuu soo saarayaa currenty time ku qadanaysa macnaha markii time la siiyo wuxuu soo saarayaa currentygaas wuxuu noqonayaa initial currentiga oo zeroda ahayd oo lagu dhiftay exponential of qiimaha inductorka uu lamid tusaale qiimaha waxaa dhahay 3 henry uu lamid qiimaha inductorka macnaha qiimaha resistorka oo loo qeybshay qiimaha inductorka oo lagu dhiftay macnaha timeka uu ku qaatay intaas iyuu lamid noqonayaa currentiga uu soo saaray inductorka waqti ayuu soo saaraya intaasay lamid tahay macnaha waa proof aan sameynay marka sawirkanaan noo caddaynaya sawirkan waxaan dhahnay halkan waxaan u qaadanay e haddii aan ka tirtiro halkan waxaan u qaadanay I currentiga u qaadanay macnaha currentiga uu soo saaray u qaadanay waa currentigani qaybtan aan sawirkan ku muujinaynaa hadda qaybtan aan sawirkan ku muujinaynaa t aan inta u qaadanay intana waxaan u qaadanay inta it aan u qaadanay intana t aan u qaadanay
halkan waxaan u qaadanaynaa I0 macnaha I0 halkaas ka dhigaynaa marka I0danu exponential minus way hoos usoo degaysaa mujida calaamad minus waxay muujinaysaa hoos exponential way burburaysaa markay hoos usoo degto halkan ay tusaale ahaan waxaan u qaadanaynaa halkan tawdan waxaa weeye meesha ay ka noqonayso boqolkiiba 36 fiiri boqolkiiba 36 I0 meesha ay ka burburayso ilaa I0 way soo yaraanaysaa mujeda marka boqolkiiba 36 meesha ay ka yaraanayso waxaan u naqaanaa time constant waxaan dhahnaa time constant ayaan u qaadanaa time constantigan muxuu lamid noqonayaa marka time constantigan wuxuu lamid yahay qiimaha inductorka aad qaadatay oo loo qeybshay qiimaha resistorka aad qaadatay halkaa marka opposite ay ku tafiiri haddii marka resistor oo loo qeybshay inductor ay halkan ahayd halkana waxaan haystaa marka intan waxay lamid tahay one of a taw intaan lamid sax one of a taw sidaa darteed taw halka hoose imaanaysaa halkaana hoose imaanaysaa haddii halkan taw lagu bedesho qaacidadan kore marka waxay noqonaysaa qaacidadan it waxay lamid tahay I0 oo lagu dhiftay exponential minus t taw maxay u taagan tahay marka taw waxay u taagan tahay l oo loo qeybshay r l iyo r-na adaa xukumi kara gacantaada ku jiraan qiimaha resistorka ay qaadanaysid qiimaha inductorka ay qaadanaysid gacantaada ku jiraan marka timeka uu ku burburayo timeka uu macnaha uu ku soo saarayo inductorkan uu response ku soo saarayo waxa gacantaada ku xiranta waxay ku xiranta qiimaha inductorka iyo qiimaha resistorka ay qaadanaysid ay ku xiranta hadba qiimaha qaadi ku xiranta halkaas waxaa noo caddaatay in resistorka respondigiisu ay ku xiran tahay value-ga inductorka iyo value-ga resistorka ay ku xiran tahay ayaa noo caddaatay marka current-ga uu soo saarayo time gudihiisa sawirkan marka waxaa loo yaqaanaa the current response of the RL circuit ayaa loo yaqaanaa RL circuit ayaa loo yaqaanaa okay marka maadaama aan current-gii soo helay VR current-gii ku sugan qaacidada hadii aan soo saarnay waxay ahayd Ohm's law oo ahay R oo lagu dhifto I hadda waxaan soo saarnay intaan soo saarnay booskeedaan ku bedelanaynaa bas sidoo kale power waxaa lagu helaa voltage oo lagu dhiftay current voltage-ka qiimaheeduna waa intaan macnaha haddii voltage-ka qiimihiisa haddaan soo saarnay qaacidadan inta lagu bedelanaya VR waxaa ka soo baxaysa marka ayadu way isku wargaraysamaysaa tanna sidaa loo soo qaadanaya okay waxaana la siiyey marka sorry qaybtan dib ay nooga imaan doontaa laakiin qaybtan aan raadinayna energy-ga wuxuu la mid yahay asna intaan la mid yahay energy-ga hadeeto I0 meesha I0 isku wargaraysan meeshii ahayd waxaa lagu dhiftay intaan oo ah time constant decay ama timeka uu ku burburayo oo exponential kadib waxaana la siiyey example-kan waxaana la siiyey sawirkan waxaa lagu siiyey qiimo inductor lagu siiyey waxaa sidoo kale lagu siiyey laba resistor marka resistorka haddayta arkayno halka xaba ahay wuxuu noqon karaa circuit lagu siinayaa circuitkaas inductor macnaha resistoradiisa ayaa isu keenaysaa sidoo kale inductoradiisa ayaa isu keenaysaa chapterka aan uga soo hadalna waa chapterka ka horeeya chapter 6 sida la iskugu keeno resistor iyo sida la iskugu keeno inductor sida la iskugu keeno resistor hore aan uga soo hadalnay oo chapteradii hore oo casharadii hore bilowgii aan uga soo hadalnay sidoo kale inductor iyo capacitorna chapter dhow aan uga soo hadalnay marka dad dib u raacdo channelka waad heli doontaa iyo waxaa lagu siiyey voltage dependent source macnaha current dependent source current ku xiran tahay current dependent source lagu siiyey waxaa lagu diray marka IT total macnaha IT dan soo saaraa uu dhahay respondiga uu bixinayo sidoo kale waxaa soo saartaa uu dhahay x macnaha IX soo saaraa uu dhahay intaasaan ka shaqaynaynaa okay qiimaha I0-na waa lagu siiyey waxaa la siiyey I0 waxaa lagu siiyey 10 ampere sawirkii marka waxaan haddaan bilaabaynaa horta waxaan ognahay markii
laga shaqeynayo Thevenin theorem haddii uu circuitku yahay macnaha waxaan soo raadinayaa R Thevenin oo ah ama R total ama R Thevenin intaas soo raadinaya marka hadduu dependent current source meesha ku jiro waxaa la sameyn jiray horta sourciga ayaa la saari jiray hadda sourciganu maxaa waaye waa inductor sourcigan yaan saarno marka sourciga markaan saarno waxaan ku bedelanaynaa 1 volt aan ku bedelanaynaa 1 volt markaan ku bedelano kadib waxaan isticmaalaynaa circuit analysis kii oo mesh analysis ama nodal analysis midkii markaas noo fududaa isticmaalna hadda waxaan isticmaalnaa mesh analysis kow waxaan dhahnay labada noola diray aan mesh 1 ah mesh 1 wuxuu la mid yahay waa kana mesh 1 halkaan aan sameyn marka mesh 1 wuxuu la mid yahay I2 macnaha resistorkan oo 2 ah oo lagu dhiftay I1 oo laga jaray I2 ilaa labadooda share gareeye I1 oo laga jaray I2 oo lagu dhiftay 2 oo lagu daray 1 voltage kaasoo 1 ah equal 0 markaan dhahno waa kasii shaqeynaynaa 2dan kusoo dhifanaynaa macnaha 2 intaana kusoo dhifan kana iska wareejinaynaa kan markaan wareejino waxay noqonaysaa -1 meel walba waxaan u qayminaynaa 2 marka meel walba marka 2 u qaymino I1 oo laga jaray I2 waxay la mid tahay -1/2 waa equation 1 u bixinaynaa mesh 1 intaas naga soo baxday mesh 2 aan bilaabaynaa haddana mesh 2 inta fiiri 2dan sidoo kale labadooda way u qaybsan tahay laakiin waxaa hormaraya maadaama mesh 2 aan ka shaqeynayno waxaa hormaraya I2 oo laga jaray I1 oo lagu dhiftay 2 waxay la mid tahay 4 oo lagu dhiftay I2 ilaa keligeeda gooni u leh oo laga jaray minus ilaa dhinacana laga bilaabay sirkiisu u soconaa fiili -3i1 is equal 0 kadib tan aan kasoo shaqeynaya 2dan kusoo garaacay 40 sidoo kale ku garaacay kadib wixii islahan aan isku diraya I1 iyo I1 way isleeyihiin macnaha sidana usoo qaatay labadana waa isku dara kadib markaan isku daro labadana waa isku dirayaa waxaa kasoo baxday labada markii la isku daro 5 tanna waa 6 kadib waan wareejiyey I1 aan wareejiyey 5 6 aan u qaybiyey meesha I2 waxaa kasoo baxday 5 oo loo qaybiyey 6 I1 equation 2 halka markaan marayo equation 2 booskan I2 aan waxaan ku bedelanayaa qiimahan aan I2 soo helay hadda waanigana substituting equation 2 into equation 1 aan ku bedelanaya qiimihii markaan ku bedesho I1 oo laga jaray qiimihii I2 waxay la mid tahay -1/2 kadib waxaa kasoo baxaysa haddii LCM loo qaato halkan ilaa tan hooseedu waa hal LCM oo qaadanaya 6i1 oo laga jaray 5i1 oo loo qaybshay 6 waxay la mid tahay -1/2 kadib labada kor aan soo kala jarayaa 6 haddii 5 laga jaro waa 1 oo loo qaybshay 6 kadib cross multiplication isku dhifanaya labadan waxaa meesha kasoo baxaysa I1 waxay la mid tahay -6/2 oo la mid ah I1 waxay la mid tahay -3 okay halka markaan marayo I1 waxay la mid tahay opposite ka fiir I1 saanay u socotaa sax I0 na saanay u socotaa marka haddii I0 anigu aan raadinayo tusaale kale I0 aan raadinaya I0 markaan raadinayo I1 na aan haysto opposite keedana ay tahay hal meel ay wada marayaan calaamadooda bisa kala duwanaayo sida darteed I0 waxay la mid tahay 3 ay la mid tahay meesha I1 ay la mid tahay 1 macnaha ay la mid tahay sorry -3 ay la mid tahay intaasna inaa fahamteen u malaynayaa kadib waxaan dhahayaa maadaama aan soo helay I0 maadaama aan soo helay waxaan sameynayaa meesha waxaan ka wadaa ET aan ka wadaa resistance total resistance ama Thevenin resistance waxay la mid tahay haddaan haysto de waxaan haystaa voltage source aan haystaa sidoo kale waxaan haystaa I0 aan haystaa total resistance muxuu la mid noqonayaa I0 oo loo qaybshay I0 labadooda la isu qaybinaa 1/3 ayay la mid intaas waxaan soo helay Thevenin resistance aan soo helay Thevenin resistance markaan soo helo waxaan leeyahay Thevenin resistance soo helo Soomaa booskii waxaan ku soo celinayaa
circuitkii koowaad aan ku laabanaya macnaha circuitkii koowaad ayaan ku laabanaya oo ahay halkiina waxaan soo celinaya inductorkiaan soo celinaya marka wuxuu noqonayaa inductorkii markaan soo celiyo qiimihii inductorka 0.5 aan haysta sax qiimaha hadda oo resistorkana ama waxaa dhahdaa 1/2 ay lamid tahay sidoo kale qiimaha equivalent resistance ama total resistance waxaan soo helay 1/3 tawna waxay lamid ahayd t waxay lamid ahayd l oo loo qeybshay r ay lamid ahayd sida darteed meeshaan dhahay r waxaan haystaa 1/2 tanna waxaan haystaa 1/3 ayaan haystaa kadib maxay noqonaysaa 3dan koray tegaysaa 2dan hoos imanaysaa timeka ku baxay marka time constant wuxuu noqonayaa 3/2 ayuu noqonayaa ama 1.5 second ayay noqonaysaa sax intaas markaan soo saaro time constant aan soo saaro waxaan soo raadi karaa I total aan soo raadi karaa I total waxay lamid ahayd intaanay lamid ahayd I0 oo lagu dhiftay tawna waan haystaa kadib waxaan dhahayaa taw waxay la mid tahay 3 meesha hadii hoose lagu bedesho inta hadii lagu bedesho 3/2 2dan koray tegaysaa maadaama waxay noqonaysaa 1 oo loo qeybshay 3/2 2dan markay koray tegaysaa kadib waxaa kasoo baxaya 2/3 aa kasoo baxaysa 2/3 aa kasoo baxaysa marka minus 2/3 oo lagu dhiftay t oo lagu dhiftay 10 ayay noqonaysaa maadaama aan soo helay marka it aan soo helay waxaan si fudud kusoo heli karaa voltageyadii ayaan kusoo heli karaa vl waxay la mid tahay inta waa ku bedelanaysaa booskeeda it ku bedelanaysaa kadib waxaa kasoo baxaysa intaana kasoo baxaysa vl intaana kasoo baxay sidoo kale ix waxaa kasoo baxaysa ilaa ix waxay maraysay maadaama aad vl haysatid waxay maraysay resistorkii maraysay sax maadaama ay isbaaran yihiin sidaa darteed vl qiimahooda inta ku bedelanaysaa 2na waa u qaybinaysaa intaan ayaa kasoo baxay marka muhiimadda ugu weyn oo laga leeyahay meeshan waxaa waaye inaad ogaatid haddii resistor tusaale oo kale resistor iyo inductor ay parallel yihiin in asal ahaan ay jirto current ku kaydsan inductorkan uu dhaqmi karo sida source uu dhaqmi karo oo current soo degi karo current soo degi kara uu sii karo resistance uu sii karo resistancegaas waqti uu ku sii karo ee waqti ku qaadanayso marka sidadeed uu sameynayo exponential delaygaasna markii uu 0.36 ama 36% uu la mid yahayna ay tahay time constant marka time constantgaas mar walba wuxuu decrease noqonaya 5 macnaha 5 markuu gaaro time constantga markuu gaaro time constant oo lagu dhiftay 5 lagu dhiftay uu ku dhamaanaya resistancegu ama inductorka uu ku wada bixi karaa ama uu ku dhameyn karaa currentigi meesha ku jiro ayuu ku dhameyn karaa marka intaas ayaa cashirkanu maanta ku eg yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu